miyuu ka leexan doonaa tubtii madaxweyne biixi uu ku tiigsanayay aqoonsiga Somaliland madaxweynaha la doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxay loolan ugu jiraan sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen siyaasadda xukuumadda cusub Djibouti iyo waddanka Itoobiya haddaba Geelle iyo Abiy Ahmed Somaliland saaxiib ma la wada noqon kartaa iyadoo wadanaheeda diblomaasiyadeed ka dhex aragta mase isku wadi karaa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro labadan wadan ee Somaliland deriska la muxuu ka yeeli doonaa Soomaaliya oo ku muransan madax banaanida Somaliland had iyo jeerna hirgelisa tallaabooyin hadimo ku ah nabadgelyada iyo jiritaanka Somaliland maxayse ku kala duwanaan doonaan dhinaca diblomaasiyadda madaxweynaha talada ka sii degaya iyo kan haatan la doortay ee Somaliland warbixinteenana ayaynu ku faraqaynaynaa qodobadaasi tubtii diblomaasiyadeed ee uu madaxweyne biixi jeexay 3 sanadood ee ugu dambeysay ayaa ahayd mid dibadda keentay cadow kasta oo ay Somaliland leedahay taasi oo ay u arkayeen inay cagta saareen wadadii aqoonsiga ay 3 sanadood u soo samreeyeen oo aanay doonaynin inay gaaraan waana sababta ay galka seeftu ugu jiri weyday ee ay Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud u sameeyeen dadaalada manjaxaabineed ee xooggan ee ay ku soo afjarayaan siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland tallaabooyinkii madaxweyne biixi qaaday ayaana ay ku guuleysan waayeen inay soo afjaraan dawladaha Soomaaliya iyo Djibouti oo iskarabsanayay 3 sanadood ee ugu dambeysay ee ay Somaliland ku jirtay dadaalka aqoonsiga shacabka reer Somaliland ayaa si ka codeeyay xisbigii iyo xukuumaddii uu hogaaminayay madaxweyne biixi iyadoo haatan talada uu qabanayo madaxweynaha cusub ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxa si weyn loo weydiinayaa muxuu ka bedeli doonaa siyaasadda arrimaha dibadda iyo tubtii uu marayay madaxweynihii isaga ka horreeyay dad badan ayaa warwariya walaac ka qaba oo aaminsan inuu ka baxayo heshiiskii Itoobiya una badanayo dhinaca siyaasadda Soomaaliya iyo waddanka Djibouti oo ka soo horjeeda jiritaanka Jamhuuriyadda Somaliland waxa la arkay galaangal hordhac ah oo aan ka farxin shacabka Somaliland kaasi oo waddanka Djibouti lala yeeshay iyadoo siyaasadda labadan dhinacna aanay sanadkii ugu dambeysay ahayn mid wanaagsan kadib markii ay Djibouti wajigeeda dhabta ah dibadda keentay inkasta oo daaha dabadiisa iyo diblomaasiyadda la ogaa waxa ay Somaliland u tahay hase yeeshee may jirin dagaal diblomaasiyadeed oo foolka foolaha oo la isugu qaadqaadaa sanadka ka hor tan iyo xukuumadihii ugu dambeeyay ee talada iska bedelayay Somaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa 3 jiho aan dhinacna uga leexan karin waxa koow ka tubtii uu madaxweyne biixi ku hogaaminayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland taasi oo ay ku culoobayaan Soomaaliya iyo Djibouti waxaana khasbaya madaxweynaha haatan la doortay oo ay in ka badan 63% shacabka Somaliland igmadeen maxay doonayaan shacabkii isaga soo doortay waxa ay doonayaan inuu horumar iyo aqoonsi waara Somaliland u horseedo sababtii loo doortay ayaanu marnaba hilmaami karin mana mari karo hilinkaasi ka duwan lambar 2 kama bixi karayo heshiiskii isafgarada ee Somaliland iyo Itoobiya oo isaga ayaaba hore u sheegay inaanu ka baxayn waxana uu si anba qaadi doonaa dhammaan boqorshihii uu biixi wadaykaasi oo ahaa in heshiiskaasi mid rasmi ah loo bedelo laguna kala goosto aqoonsi caalami ah lambar 3 madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxa uu kaga duwanaan doonaa madaxweynaha haatan talada ka sii degaya wuxuu isku dayayaa inuu tallaabooyin diblomaasiyadeed oo daaha dabadiisa ku wado qorshihiisa isku wado Soomaaliya Djibouti iyo waddanka Itoobiya haddii ay u suuro gali weydana waxa uu ku qasbanaanayaa inuu dabaxo danta dadkii doortay iyo dalkiisu himilada iyo hadafka uu leeyahay waana hilin aanu dhinacna uga leexan karin oo ay kuwii ka horreeyayba marayeen kuwa ka dambeeyana mari doonaan kaasi oo ah go'aanka shacabka Somaliland ay gaareen 1991 hogaamiyuhuna haddii uu isku dayo inuu wax ka bedelo waxa uu ku waayayaa kursiga uu saaran yahay iyo kalsoonidii la siiyay